kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka oo shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa kamid ah lafta gareen oo soo gaadhay magaalada Muqdisho iyo xog shirka uga furmaya madaxda maamul goboleedyada magaalada Muqdisho aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan lafta gareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya wafdiga ayaa waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caasimada socdaalka madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen ee magaalada Muqdisho ayaa ah ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran ee looga hadlayo xaaladda dalka kaasi oo maalmaha soo socda ka furmaya magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa isla maanta magaalada Muqdisho ku soo wajahan madaxda kale ee dowlad goboleedyada si ay shirka uga qayb galaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa toddobaadkan shir degdeg ah ku yeelan doona magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlayo xaaladda hadda soo korodhay sida ay warbaahintu ogaatay ilo wareedyo lagu kalsoonaanayo ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyey in shirkan uu iclaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana 27 bishan oo ku beegan berri uu ka qabsoomi doono Villa Soomaaliya madaxweynaha ayaa casuumaad u fidiyey shanta hogaamiye goboleed sida Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle oo lagu wado inay soo gaadhaan magaalada Muqdisho lama shaacinin muddada uu qaadan doono shirkan oo ah mid xasaasi ah isla markaana ku soo aadaya xilli uu haatan dalku ku jiro dagaalka dhana kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wararkan hele ayaa sidoo kale sheegaya in shirka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka lagu soo qaadi doono arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta labada dhinac u dhaxaysa iyo sidoo kale xoojinta howlgallada haatan ka bilowday dalka xogta ayaa intaasi ku sii daraysa inay madaxdu falanqayn doonaan arrimaha shidaalka ee uu haatan faraha la galay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo dhammaystirtay heshiiskii shidaalka sidoo kale shirka waxaa lagu soo qaadi doonaa gurmadka abaaraha maadaama ay ka sii darayaan xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gunaanadka shirka madaxda wadatashiga qaran ayaa la filayaa inay si wadajir ah u soo saaraan war murtiyeedkay kaga hadleen khudbadihii ay ku gorfeeyeen shirka inta uu socday qodobka ugu weyna uu yahay dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska ku soo laabtay 15 May ee sanadkan 2022 ayaa kulamo hore la yeeshay madaxda maamul goboleedyada iyagoo ka wada hadlay si ambaqaadidda howlaha waaweyn ee horyaalla dowladdiisa cusub iyo sidoo kale wada shaqayn labada dhinac ah